بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan marka hore ka salaamayaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliyeed Mr. Roble Maxamed Xuseen Roble mudana waa ku salaamay Allah ku barakeeyo Allah ku fududeeyo xilka culus oo aad Soomaali u haysid nin xil qaaday eed qaad baa la yiri nin Soomaali u qaaday Ilaahay ceebtiisa ma asturin Allah ku xafido marka Ilaahay ceebtaada asturo mudane waxaan ku kalsoonahay hogaankaaga waxaan ku kalsoonahay nin khibrad leh oo aqoon leh oo la taliyaal leh oo arintan Uhuru Kenyatta u wajahaya sida ugu haboon inaad tahay laakiin Soomaalidu waxay dhahdaan rag tala kama dhamaatee talaan rabaa inaan kuu soo jeediyo mudane waxaan arkayay Uhuru Kenyatta oo macawis iyo cimaamad iyo koofiyad ku soo xirtay waa been waa soo dhaweyn siyaasadeed waa hanashada qulubta waa qayb ka mid ah tacticska ay siyaasiyiintu isticmaalaan anigu siyaasi ma ihi laakiin campaigner baan ah Kenya dagaal dheer baan la soo galay waa khiyaano badan yihiin waa muluq badan yihiin waxayna jecel yihiin always whatever it takes inay wengareeyaan toddoba iyaga ka mid ah xildhibaanadooda ah oo uu hogaaminayo ninka maanta aeroboortka kugu soo dhaweeyay sirka ganacsiga Peter Munya oo markaas ahaa Meru governor oo ah nin ka soo jeeda gobolka Meru ba halkaan London loogu yimid oo dood la galay markaas waxay ku doodayeen Ingiriisow noo ogolaada Soomaali aan ilkaha ka daadinay annaguna ma aan lahayn Ingiriis oo Ilaahay hadaa taqaan laga celin nimankaas mudane waxaan kugu boorinayaa oo aan kugu dhiirigelinayaa saddex mas'alo inaad iska jirtid saddex mas'alo baan isleeyahay waa lagu soo hordhigayaa waa kow waxaa lagu leeyahay ka tanaasul badda Soomaaliyeed aan ka wada hadallo arrinteenu Afrika ha gasho African problem African solution si ay ummaddu u kacdo oo hanka Afrika u weynaado oo aan conflictigeena u xallisano oo aan boogaheena u dhayano leader baa tahay conflictigeena dhexdeena iyo gogol African Ethiopia ba gogasha hala dhigo African Union gudaheeda hala geeyo naga ogolow waxba naga halaayi maayaan intaan maalin walba ergo iyo European Court intaan aadi lahayn leader baa tahay African Union baan raadinaynaa haba no blow arintaas bal arintii u horeysay inaan ka dhaxdeena ka heshiino waxa lagu muujinayaa Africanism Blackmanism Afrikaar lagu soo jeedin karo ogow macawistii iyo cimaamadiina waa lagu xiray waa tactics midaas waxa laga yaabaa inuu og yahay 80% inuusan chance lahayn meesha Soomaali ka taagan tahay way og yihiin already homeworkooda way ka soo shaqeeyeen taas markaad maya dhahdid second option baa table-ka lagu dhigaya waa maxay muxuu yahay waa waxaan loo yaqaan profit sharing waxa lagu leeyahay walaalow Soomaaliya wad u jeedaa is developing hadalka ay mar walba u adeegsadaan aw ciidamadayadii baa nabadda sugaya Amazon iyagoo ka mid ah bay amniga Soomaaliya ka shaqeynayaan badda Soomaaliya Navy malaha hadda waxa control oo dhinacan Jubaland iyo jooga waa ciidamadii badda ee Kenya anaga ayaa al-shabaab ka xilin al-shabaab bad ka soo weerartay xagal go'an marka profit sharingku waa baddiina hal idin xukumo maxkamadiina aada laakiin investment baan meesha naga gashay shirkadan contract la galnay at least si ay wax u noogu soo noqdaan profit sharing noo ogolow wixii meeshaas laga faa'iido percentage intaasna sii markaasna waxay sugayaan negotiation in la gashid adeemay intaas idin siin mayno waa ogahay meesha waxbaad ka qodqodeen shirkadaha la heshiiseen qarash baa idinka galay intaasan ku ogolahay negotiation halkaas uu ka bilaabaya table-ka saddexaad oo closing-ka ah oo lagu cimaamadayna waa hadda labadii wadan heshiinayay hadda diyaaradii qaadkana fasax ogow same thing inta ugu yimid Xasan Sheekh Maxamuud oo uu trade agreement la galay oo uu yiri kalluunkan qaadanayna oo uu yiri caanahan qaadanayna
oo isla maalinkii loo fasaxay September 13 2016 wiig kadib kalluunkii Soomaaliya la gubay oo dib loo celiyay oo caanihii iyo hooyooyinkii balad xaawo iyo borderka u dhawaadeen dib baa loo celiyay waa khaa'in waa beelow aaminin walaalow ha aaminin walaalow u talabadso walaalow wax walba aad kala soo hadashaan dadkaaga iyo dalkaaga kugu soo noqo qoodha iyo xerada iyo xaniinta rooblow bulsho dhiiran oo Soomaaliyeed baad ka soo jeedaa Soomaali reer kama maarantee reer hadii la dhahaa reer dhiiran baad ka soo jeedaa adeerka Cabdullaahi Ciise wuxuusan qaateen halyey Cabdullaahi Ciise wuxuusan qaateen cadowga ka qaadan qoodha iyo xerada iyo xaniinta Soomaali u heli oo mustaqbalkooda fog u heli ninkaasi wuxuu cimaamadaha iyo macwiisadaha u socdaa dhaxalka caruurta Soomaaliyeed oo dhalan doonta inuu sii qaato kuwa hadda joogana oo dhalinyaradana inuu ilkahana ka daadiyo maskaxdana ka dumiyo maalkoodana gurto muruqoodana fariisiyo asagoo adeegsanaya rasaasta cagaaran ee qaadka qoodha iyo xerada iyo xaniinta ka yeelin adiga iyo farmaajo iyo waxa isku haysataan inta u soo noqotid oo mooshin ka keentid rid hadaa rabtid sharax hadaa rabtid oo raggaaga iyo xildhibaanadaada iyo waxaaga hadda inta ka shaqaysatid sidii aan maalinkii ku hore ku iriba kale la tartan oo ka tuur oo madaxweyne noqo waa nin iyo hankiis iyo kartidiis waa ku sacbinaya waa ku taageeraya laakiin ina adeerow qujraafaadkeena iyo saxaxagashadeena iyo xaniye ka taabashadeena gudaheena in adeerow yeeso dibadda u bixin ninkaas intaas uu rabaa inuu ka faa'iideysto waxa lagu waaweynaynayo oo cimaamada iyo koofiyada iyo uhuro adigu bal imagine uhuro cimaamad iyo kowsaga assalaamu alaykum I am sure goobta ma joogin laakiin inuu ku yiri assalaamu alaykum barada waa qayb ka mid ah tactics waa winning hearts and minds waa soo dhaweyn si aad isla markiiba u dareento warinku waxa la iga sheegayo maaha waa nin bashaasha walaalo don't fall for it dabinkaas ku dhicin waa siyaasi culus khubaro waaweyn baa ka dambaysa ingiriis baa ka dambeeya every step ay qaadayaan waa laga sii shaqeeyaa sida xisaabtii hadday taas dhahan taasaan degayna hadday shaxda halkaa degaan halkaasaan degayna walaalow gacaliyow arxan iyo ehel iyo walaaltinimo iyo islaamnimo midna nagama dhaxaysa nimankaas waad aragtay shacabka Soomaaliyeed say u gumaadeen waad aragtay videogan ku soo diray hooyada 8 jirka ay gacantu go'an tahay caruurteedina hoosteeda lagu dilay aqalka baadiyaha banaanka degan saddexda caruur haysato la laayay waad aragtay xoolaha la laayay waad aragtay hantidii taxi bayerkii ugu weynaa wadankan shaqo bixiyihii ugu weynaa wadankan hormuud telecom waad aragtay waxay ku dhigeen alteenooyinkoodii iyo asadkoodii iyo waardiyaashoodii iyo bilnimadoodii waxoodiiba intay burburiyeen bay Safari Telecom hadda ka shaqaysaa balad xaw hadda tan kula hadlay walaalow waa qixin hormuud weerarkeedu ma aha kaliya hormuud in la weerarayo weerarka hormuud waa weerar ummadda Soomaali waa weerar dhaqaalaha Soomaaliyeed waa weerar lagu barakicinayo dadku inay gudaha ku noqdaan sababtoo ah xilligan la joogo Mr Prime Minister alteenada hormuud sida roobkii baa loo raacaa sababtoo ah EVC iyo wax walba iyo telefonkii iyo wax walba ku xiran reebaadii waa ka daba guuraan Kenya markay mid dumisaba waa u guuraan mid kale xagee u guurayaan Soomaaliya gudaheeda waa barakicin inay dib uga noqdaan xadka iyo agagaarkiisa ay ka fogaadaan xadbeenaadka ay samaysteen ina adeerow talada badso ina adeerow waa ogahay positionka waa ku cusub tahay waa ogahay qofku markuu shaqo cusub bilaabo any shaqo ay tahay waa vulnerable settling in who is xageebuu ka wataa muxuu oran doonaa next move waa wax kugu cusub ina adeerow talada badso ina adeerow Kenyati 15 sano baan in my capacity inta awoodaydu ay leegtahay as a campaigner ilinka keenay ina adeerow taladayda qaado position of strength adoo power leh waa dib baan ula noqonayaa golahaygii baan ku noqonayaa wasaaradayda arrimaha dibadda ku noqonayaa dalkaygii baan ku noqonayaa wax walba lagu dhaho we will consider thank you very much we will take that on board waa talada ku darsanayna ina adeerow waxba ii saxiix ka tagin profit sharing agreement macnaheedu waxa weeye the rest of your life can baddaas
haddii naloo xukumo marka naloo xukumo iyaga ayaa percentage qaadanaya intaasayna raadinayeen way ogyihiin inaad maxkamad siinayn inaad ero talada badsaan ku leeyahay allaha ku guuleeyay waa kuugu soo gabagabeynaya qoodha iyo xerada iyo xaninta rag baa u soo dagaalamay dalkan rag baa naftooda u huray qabuuraha ayay ku jiraan maanta qoodha iyo xerada iyo xaninta waxaysan qaateen ha qaadan waxaysan qaateen ha qaadan halyeeyadii Soomaaliyeed u soo dagaalamay u heli caruurta Soomaaliyeed oo u heli mustaqbalka fog oo huriyo ku sir inaad ero tala badso inaad ero tala badso intaasan kugu soo koobaya aad baana ku salaamaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilkaas adag oo Soomaali waliba loo qaaday Soomaali reeda ka faar si fiican baan u aqaanaa أنا الحلبة وهم من كبح صلى الله إليه كوفو guulaysan ku leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.